iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey koonfurta gobolkan Shabeellaha Hoose uu ka socday dhaqdhaqaaq militari oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka ayaa maanta tuulooyin hoos yimaada deegaanada Sabiib iyo Caanoole iyo deegaanada kale ee markaasi dhowaan weerarada ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen howlgallo ballaaran oo ay sheegeen inay ammaanka deegaanadaasi ku xaqiijinayaan. saraakiisha horkacaysa howlgalkan ayaa tilmaamay in markaasi ay sii socon doonaan howlgalladan, waxaana ay sheegeen marka uu soo idlaado in faahfaahin ay warbaahinta ka siin doonaan. deegaanada ay howlgalladu ay markaasi ka fuliyeen ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi isku urursanayeen kooxda Al-Shabaab. ila wareedyo deegaanka ayaa u xaqiijiyay Somali Cable in howlgalladani ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka isla markaana uu yahay mid aad u ballaaran, waxaana la sheegay in howlgalladan intii markaasi uu socday aysan jirin wax iska horimaad ah oo ay la kulmeen ciidamada xoogga dalka, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo horkacaysa howlgalkan. isku soo wadaduuduba howlgallada deegaanada ay ka fuliyeen maanta ciidamada xoogga dalka ee fadhigoodu yahay Shabeellaha Hoose ayaa ku soo beegmaya xilli labadii toddobaad gobolku ay ka dhacayeen weeraro ay markaasi ku soo qaadaan fariisimada ciidamada xoogga ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Cabdi Fatax Tawakal, telefishinka Somali Cable, gobolka Shabeellaha Hoose.